الله أكبر. salaadii janaasada ayaa lagula dukaday masjidka weyn ee Preston kadibna waxaa loo soo galbiyey goobtii lagu aasi lahaa. Sheekh Maxamed Nuur Faarax da'da kontomaadka ayuu ku jiray, aaskiisana waxaa ka soo qayb galay boqolaal Soomaali iyo Muslimiin kale isugu jirtay, waxaana uu ahaa sheekh si weyn looga jeclaa magaalada tan Melbourne. wuxuu ahaa nin run ahaantii markaan guriga aan joogno habeenkii hadduu subaxii quraankiisa uusan akhrisan habeenkii asoon akhrisan muu seexan jirin waan xasuustaa markaan sii seexday isaga quraankiisa u akhrisan jiray bismillah wa billah wa amallat rasulillah remove this astaghfiru li akhukum innahu al'an yas'al allahumma ighfir lahu waxaan ka codsanaa inaa cafisan insha Allah qof alla qofkii wax yar u qabo insha Allah iska cafiyo. Cismaan Cali Maxamed waxa uu ahaa saaxiib aad ugu dhow sheekha, waxaana uu ka waramayaa sida uu dilka u dhacay. arintan waxay ahayd arin wadaadka caado u ah oo weligii soo sameyn jiray ilaa khayr ha siiyo oo qofka xanuunsan guriga ugu tagi jiray oo u soo duceyn jiray oo quraan ku soo akhrin jiray. kadib waxaa dhacday marka Luqmaan uu baxay markii alaabtii jikada uu geeyay midi markaa meesha tiilay oo aan waliba aan ku qiyaasay inay ahayd midida basasha lagu jarjaro midi weyn xitaa may ahayn. mididii buu soo qaatay marka ma dagaalamayo ma murmayo ma hadlayo waa aamusan yahay. ninka halka mar uu soo booday oo soo dhaqaaqay midida halkaas uu ka galiyay. then wadaadka saaxiibka Sheekh Maxamed baan anigu ku soo dhagay garabkan qabtay gurigan xoog kaga soo saaray marka waxaan arkay markii wadaadku isbedelayaan arkay oo xaaladiisa ay sii cuslaanayso anoo xaaladaas ku sugan baa marka alxamdulillah waxa igu soo gaaray booliiskii ambulance igu soo gaartay marka alxamdulillah markii dambe ayaga meesha iga kaxeeyay aniga isagana ayaga qaaday kasto ay dhahayeen naf way ku jirtaa markay qaadayeen laakiin waxaan dareemaynaa in niyad ugu dhisaayeen insan naf markaaba naf fiican ku jirin. alxamdulillah macnaa markii dambe ayaga qaaday wax yar kadib aan booliiska soo meesha igu hayo i wareysanay ayaa nin sargaal ay imaaday wuxuu yiri bad news baan ku hayaa wuxuu igu yiri ninkii saaxiibkaaga ahaa waa dhintay buu igu yiri. muddo fog ayay is yaqaaneen Cismaan iyo Sheekh Maxamed Allah u naxariistay. 2007 ayaa waxaan isku baranay xira ku taala Uganda oo Nakivale la dhaho meeshaan iskugu imaanay run ahaantii wuxuu ahaa nin Ilaahay tirtiya isku barano waxa weeyaan soo xadiidka nabiga cali salaam sheegay macna 7 ruux maalinta qeyb carshiga Ilaahay harsanaysa Ilaahay ugu dar macna wadad macna rajulan tahabba fi Allah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wadad Ilaahay dirti isku bartay وما أركيسا أو ماشى مسائل أسكو برني دعوة أسكو برني أيوها لو هذا كن إياه لحي طبعاً مسجاني طبعاً آخر كذا بعنده إلى إياه بيشان هذا سنة كان أكون جرون أنصار رافن لو هذا إلا وقتاً كبيش مي وأود الدجنين قال كهذا يقدم بيا أيوه وذات كنت جنا إلى هذا سريرتي ساعتها لارون هانتي markanin wuxuu ahaa runaantii umada u nool buu ahaa oo dabeecad wanaagsan aniga Cismaan ahaan saaxiib kaliya ma ahan runaantii waalid buu yahay nin wuxuu ay la talin jiray wax barashada iga la talin jiray barashada diinta iga la talin jiray oo ma arkaysa mar walba inii jirnay waqtigaaga wax barasho ku bixin. jaaliyada Soomaalida ayaa aad ugu murugoonaysa geeridiisa. nin wuxuu ahaay runtii afkiisa iyo maartay ficilkiisa laga nabad galo waxa uu maanta marqaati looga furi karaana waxay tahay kaliya in uu ahaa nin fiican mujtamaca si fiican looga yaqaano nin cibaado iyo isxaam badan ayuu ahaa Sheekh Maxamed sida la ii sheegay. aniga khaas ahaan waxaan kamid ahaa community-ga ama raggii ay isku dukan jireen masaajidka North Melbourne. salaad ma jirin shaqo walba ku jiro ilaa ninka waa imaa jiray masaajidka waana ku tukan jiray waqtigiisa. marka aad baan u aqaanay marka waxa lagu yaqaan waxaan ku aqaanay nin sheekh ah oo sheekh weyn oo la yaqaan oo caan ah waxaan ku aqaanay nin idab badan oo khiyaar ah waxaan u tacsiideynaa meeshaan hadeertan walaalahay dhamaanteed la wada taagan iyo ehel iyo qaraabi asxaab intaba laga soo bilaabo Uganda ilaa iyo Australia waan ugu wada tacsiideynaa insha Allah walaalkeen geerida ku timid waxaan leenahay jannatul firdaws Allah ka waraabiyo. marka runtii aad ayaan uga naxay community-ga Soomaalida runtii iyo muslimiintaba aad ayay uga naxeen nin wuxuu ahaa ehlu sheekha oo aad loo jecel yahay oo dadka aad u caawiyo. Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Nuur Faarax waxa uu yimid dalkan Australia horaantii sanadii 2015 waxaana la dilay sabtidii la soo dhaafay inkastoo maanta boqolaal muslimiina
oo Soomaaliya halkan ay isugu yimaadeen si ay u sii sagootiyaan hoygiisii dhabtii ahaa ayaana caawa loo galbiyey. Ibraahim Cumar Baafe, qubanaha VOA magaalada Melbourne dalka Australia.